السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دكاترة معلمين بروفيسور رضي خبرة iyo bahda beeraleyda Soomaaliyeed halkan iskugu imaatay barbaarta wiilal gabdhabo waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh hay'adaha saaxiibta la ah mashruucan barbaarta iyo beeraha dhamaantiin waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga runtii Cabdishakuur iyo tiimkiisa markii ay bilaabeen kadib aan ka war helay iyagoo mashruucan wadaan aadana runtii fikirka warbaahin ka hadlayso wax aanan siyaasad ahayn aan aadan ula dhacay yani beeraha ma aanan soo baranin laakiin Soomaaliya waxaa najaha wareeriyay qof oo warbaahinan ay dhahayo aanan aqoonin wax waa la isdagaalay xabada la riday madfaca la gamay xumaan iyo dagaal iyo mushkilo bas ka sheekayo suufiyiinta ugu caansan maanta hadii la idin weydiiyo waxaa magaciisa hore ka soo qabanaysaan shakhsigaas xumaantaas ka sheekayo hadii madal saxaafadeed la idin weydiiyo madal oo siyaasad iyo ka sheekayso dhibaato iyo xumaan ka sheekayso bas ayaad sheegaysaa haday tahay idaacado haday tahay telefishinno anaga markii aan waxbarashada wadan soo barbaaraynay waxaan xasuustaa radio bisal dhageystay jiray idaacadaha Horn Africa iyo Shabeelle iyo dalka ku soo biiray waxa ilaa mahadiisa shaqaalaha ay ugu horeeyay shaqaaleysiin waxay ahayd dadkii oo xilligii maxaa la yiraahdaa kacankii la soo tababaray marka mashaariic programyo gooni loogu taxnay oo sheekooyin iyo programyo runtii arrimaha bulshada ka hadlo ay soo day jireen dadkaas way sii gawaasadeen adduunkii uu sii hormaray waxaa soo baxay suxufiyiin aanan academic ahaan aan loo soo tababarin ethiga iyo akhlaaqda saxaafadda aan loo soo tababarin aanan niche wax oo gooni ah ay wax ka qoraan lahayn marka in dhalinyaro da'yar oo hadda videoga markaan fiirsanayna isheeda waxay qabatay Cabdishakuur oo dugsi dhexe inuu dhigto loo maleeyo marka da'da intaas la eg qof jiro oo haddana ka shaqeynaya warbaahin ka shaqeynayo kana fikirayo sidii beeraleyda xogta beeraha iyo cilmiga beeraha loo gaarsiiyo bulshada inteeda kale runtii waa wax aad loogu farxo aadna loo amaano marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad tiimka barbaartii beeraha aad iyo aad u mahadsantihiin 10 sano shaqada beeraleyda u qabateen